متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهو مid samra samirka waxaa lagu micneeyaa naftoo la xidho. Sharci ahaan samirka waxaa lagu micneeyaa in lagu samro daacada, in laga samro macsida, in qadarka lagu samro. qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun. Alle wuxuu yidhi kuwa alla rumeeyo samra oo samirtama oo la xidhtama. Raabidka waxaa lagu micneeyaa daacaadkii khayrkoo lagu sugnaado. qaala tacaala inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab. Alle wuxuu yidhi waa loo oofiyaa kuwa samre ajirkooga xisaab la-aan. Alle wuxuu leeyahay dadka samre ajirkooga ilaa xisaaba lagu siiyaa. Nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, samirku waa iftiin. Saciid alkhudri waxaa laga wariyey dad ka mid a ansaartu rasuulka imaal weydiisteen, uu siiyey, way weydiisteen, haddana uu siiyey, ilaa uu ka dhammaaday wuxuu hayay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Markaa buu yidhi agteyda ma ahaado wax maaloo iniga kaydsado. Qofkiis dhowra alla u dhowraa, qofkii deeqtooma alla u deeqaa, qofkiisa samirsiiya alla u samirsiiyaa. Lama siiyo qof siin ka wanaagsan, kana khayr badan, kana ballaadhan samirka. Waxaynu soo qaadanaynaa hadalladii ka yidhaahdeen asxaabtu samirka. Cumar binu khataab wuxuu yidhi, samir ayaan ku gaadhnay nololtii ugu wanaagsanayd. Samirku hadduu qof ahaan lahaa, deeqsi buu noqon lahaa. Waxaa sidoo kale uu yidhi caliy binu abi taalib, samirku waxuu iimaanka uga taagan yahay halkuu madaxu jidhka uga taagan yahay. Haddii madaxa la jaro jidhku uu baaba'aa, qofkaan samir lahayn iimaan ma leh. Waxaynu wax ka tilmaamaynaa faa'iidooyinka aan ka dhaxli karno samirka. Samirku wuxuu caddayn u yahay iimaanka dhammaystirnaantiisa iyo islaamnimada wanaaggeeda. Samirku qalbiga buu dhaxal siiyaa toosnaan. Samirku waxa uu dhaliyaa jacaylka Alleh iyo jacaylka ummadda. Samirku waxa uu ku keenaa ku guulaysiga janno iyo ka badbaadida naarta. Waxaa kaloo tusaale inoogu filan oon samirka kaga dayanaynaa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo u samray dhibaatadii u geysanaysay gaaladu xilliguu ku sugnaa Maka. Waxaa kaloon tusaale u soo qaadanaynaa ardaydii nebiga oo ahayd asxaabtiisa. Qoyskii reer aala yaasir waxay ahaayeen kuwo ku samra dhibtii loo geystay, waxaana ugu bushaareeyey nebigu janno. Aan u samirno nolosha dheefteeda iyo dhibaatadeeda. Alle waxaan ka baryayaa inuu inagu arsaaqo samirka dhammaantiin.